maalmahan waa soo waashay la yiri maalmahan Facebooki maalmahan waa soo waashay maalmahan Facebooki waa soo waashay muxuu la soo waashay daaradii hawiye maalmahan Facebooki waa soo waashay muxuu la waashay daaradii hawiye daaradii warwaligiin iyo allihiin iyo abidkiin ma aragtay wariyaa la maamulhayo ayaga dadka la isku dirhaye dadka waa iyada la isku dirhaye yaa la maamuli doonaa daarood isma saarne maxaa la isu saarahayaa daarood ma daarood ba is yaqaan hawiye isma saarne maxaa la isu saarayaa ma hawiye is yaqaan yaa wariyaa ilaahay yaqaan anigu gabdho waxaan maanta haystaa aad iyo aad aan u jeclahay oo aan isku meel ka duulaynay dadka waa wada duushaa soo maaha gabdhahan isku meel ka duulaynay yaa baan aad iyo aad maanta u dhaliilayaa waxa ay lahaayeen intay soo galaan laymanka aad iyo aad baan uga xumahay daarad aniga qof kale oo aanu saaxiib ahayn oo aanu isku meel aanu ka duulayn maanta dhan hadduu cid caayayo waa iga degayaa qofkaas laakiin igama degaayo qof aan saaxiib nahay yaa reerkaaga ha caayo oo haba caayee maxaa ku caynaysaa ha caayee cay daarood maxaa ku caynaysaa daarood ma wuxuu kuu keenay farmaajo wariyaa ilaahay yaqaan oo daarood farmaajo kuu keenay sunaamida ma anaga keenay wariyaa ilaahay yaqaan waxaas hadde waa maxaa ka wadaa aniga waxaaban is leeyahay gabdhahan hawiye sheeganaya lacag baaba la soo siiyaayo si daaroodka ay u mideeyaan ayay daaroodku isu saarayaan ilaa daaroodku isma saarnay adaa isi saaraysid ma garteen daaroodku isma saarnay adaa isi saaraysid allaa yahdiik marka waaba iga deg waaba yaabanahayba waxaan leeyahay gabdhahan xaggee wax u wadaan waxaan la yaabanahays aniga qof dushaaba layga saaray maanaa keenay maalmahan waxaa arkaya dad dhahaya Zaynab baa saa samaysay oo haddee Zaynab hadday ay noqotay masgoodaad oo idiin jiiftay oo isoo dhirinrinaysay ninka aad impeachmentiga inta ku samayseen asagoo ra'iisul wasaaraha saarteen yaa wallaahi bilaahi shifagiyo waa gabdhaha habar maxaa la dhahay abgaal iyo habar gidiro si fiican ba idin fuush hoose inta midhaa isu dhigtay waxay ku fakeraysay one day ilaa waxaaba muuqata fiiri farmaajo maamulkiisii dhanba wuxuu ka bilaabay nimankii ka horreeyey oo Shariif Istakiin iyo Shariif Sheekh Xasan iyo Xasan Sheekh iyo nimankii la soo shaqeynayay inuu qabdhe ka siiyo mid mar tuuro mid mar qaniino fiiri look markay fiiri maalintii ninkeeda impeachmentiga lagu sameeyey yaa Zaynab go'aan waxay ku gaadhay wallaahi waa naag heersanaa laandheera dhala go'aan waxay ku gaartay inay ninkeeda madaxweyne ka dhigto sidii loo qaniinayna giddi u wada qaniino ma garateen marka nimankan la yiraahdo daarood meeshan gamekan ciyaar kuma jiraan victimka daarood victim weeye daarood ninkan idinma keenin daarood isma saarna qof walba dhinaciisu u duulahayay ma garateen haddaan hadda soo jeesano dib u soo jeesano annagu victim yaa idinkaan idinna hawiyow kursigaana wuxuu ahaa 4.5 waxa daaroodku igu dhaho luuqa markay ka soo wacaan waxay dhahan annaga iyo hawiye waxaan isla tegaynaa
ها محكمة أدون كان يستجينا محايلي يا كرسي مقع يجا أها يا maalin walba kii daarood oo saaran bay dawada haystaan haba ahaatee maanta nin ay shalay impeachment gareeyeen ayay saareen wax kalena oo ma saarinine nimanka kaloo daarood ma saari karin nimanka kaloo daarood ma saari karin why because nimanka daarood waxa u muuqatay saddex gees triangle power baa u muuqday maxaa yeelay ninkan impeachmentaa shala ka dhigteen waa ogeydeen idinku soo noqonayo idin qaniinayo meel aad saartaan baad weydeen marka cid kale ma siin karin hawiye kale kumayna celin karin maxaa yeelay hawiye kale haddaa ku celisaan laba jeer oo isku xigtaad soo qaadeen marka dadku ha fahmo macnaha aad ninkaan u saarteen waxa weeye inta dhaga sidii hore aan u cayrino inta system iyo accusation iyo adduun inta ku soo saarno sidii shalay aad u cayrisaan haddee daaraad waxay yidhahdeen annagu booska iyagii baanu rabnaa 4 sano oo hal bacaad lagu lisay yaa cid qaadanaysa ma jidhe daaraad waxay yidhahdeen heeg maxkamadda heeg baanu tegaynaa وبالله تلا بينا أما آسيو اللي بحيا مع وينس كبنادر ده أما هديهم بالليل اللي بحيا ده مع وينس كبنادر أما ده بالليل أما هديهم هيك بنو تجينا هيك 4 سنة هالبعال يقول لي وهدان قادنا ها حنية رجعت بكو قادنا حنية ها إنا كلا قونا سومالي كلا قوضو إن 4 سنة يا نلوكو عشي إلا أنه سان كوما وشيري كرني ها محاي تاني كان دقاينيو ها نكان بالفير مقار ساركا نكان هدان دقالي هوية وهدان دين دقالي ميل عدى الله يصادقي وحالي نكان أيها أقو شوي أيها الرحوين بأقو شوي ها أقو شوان آسيا هذا أقو شوان أيها الرحوين يا إن هذا وحي كان إنه دهان كنا جيسيا كنا دقرة كنا فليا كنا maxaa annaga nagu soo ceshay annagu waa fiirsanaynaa albitro annagu waa fiirsanaynaa baliya albitrana maxaa nagu soo ceshay maxaa sheekada noo keenay maxay sheekada ugu hayaan kana geesiya kana magaciisiya yaa darbi daarood ka geesisan ha daarood la kala fiirinayo darbi daarood yaa ka geesisan hadee ma jiro marka annagu waa isleenahay daarood odayaal qabtu leeyahay yes you're right ma kala adkin daarood ma kala adka odayaal laakiin odayaashii hawiye yaa haddaan hadda tala siiyana talada yeelay mahayaan oo maanta tala u sheego allah maxaad ugu sheegtaa daaroodku leeyahay allah maxaad ugu sheegtaa haddaan hadda u sheego yeeli mahayaan hawiye waxa weeye daarood ma kala adka odayaashoodu ma kala adka iskuma seexad gudbaan aan ku dhahay ha meel bay is saaraan idinka odayaashiini waa say u dhamaayeen ya waa hadda say u dhamaayeen ya dawladii daba fadhiyaan dawladii ya daba joogaan say u dhamaayeen waxa ordaya oo mudaharaadaya waa wiil yar oo dhashay qabti burburkii ka bacda wiil yar oo dhashay way waxa ordaya oo mudaharaadaya wixii ka weynaayo dhan dawladda daba fadhiya gidi marka ya anigu hadda waxbaan idiin sheegaya waana secret I know daarood inay xanaaqayaan dhag maxaad ugu sheegtay aniga daarood igama tiidin hawiyana igama tiidin dad waxaad tihiin dhibanaha laakiin dhibkiinni dadkii tusa soo dhaweeya dadkii wax la qaybsada dadkii wuxuu sheegay dadka ha kala dirinina yaa ilaahay yaqaan ilmihii xuxunka ahaa isku dugsi ugu socdaaya ii soo socda dadkii dhibkiinni u sheegta soo dhaweeya
dadkii dhibkiina sheegta wasaana nala ku haya wasaana ilaa ninkii waa nin ay idinku saarateen annagu sunaamida maanu keenin daarood haddaan nahay sunaamida maanu keenin ha daarood intiisa kale ilaa daaroodka haysi saaranine daarood isma saarne laakiin waxaad xaq u leedihiin inaadna tustaan oo tiraadaan saasaan haysata dhibkaasaa jirta inaad gogol noo dhigataan inaad tiraadaan dhibkaasaan haysata ilaan annagu hadda nin tuuga oo dawladda iska daba shubay yaa ma kontrooli karno laakiin waad arkaysaan puntland baanu nahay jubbaland baan nahay dawladdaani ma ayidsanin haa ma jeclin and you know it marka annaga waxa weeye victim baan nahay haddaad rabtaan inaan annagu midowno oo aan giddaan midowno systemka aad wuxuu wadaa wax ka daaya wallaahi daaroodow maxaa ii kala jabinaysaa adeerow maxay adaa kala jabay maxaa ii kala jabinaysaa ha saan anugu kuma kala jabayo laakiin waxaa kuu fiican inaad aniga aad tiraahdido xilo qabo inaad ii catowdid qayladaadii baa sabadatay qayladaadii qaaq meelaha waxay qaylinahayeen ninkii la odhan jiray kuwaan maxaa la dhahay xataa siyaasiyiintuna waa qaban la'yihiin kuwa qaylinaya wallaahi aniga hadday ahaan lahayd afkaan ku dhufan lahaa bal hadda daahir celisow wuxuu yidhi xasan sheekh waa la shaqayn lahaaye lacag buu ii diiday balaaya kula tagta waxaas ma siyaasi baa waa halkaas u kacay halkaa kaas inaa maro moogta wuxuu yidhi xasan sheekh waa la shaqayn lahaa isaga afgaran waaye yaa marka aniga waxaa waaye hawiyow aniga idinku meel baan ka wada duulayn gabdho badanoo aan saaxiib nahay oon meel ka wada duulayna wallaahi aad baan u dhaliila intay leemanka soo galaan bay daarood maxay isu saaraysaa ma daarood waa isi saaran daarood ma isiiqana shaqo isku leh hawiyaan isaqoona shaqo isku lahayni dadka intii wada duusha baa wada duusha hawiya daarood laakiin siyaasaddii completely hawiya waa idinka xumaata waa idinka xumanaat siyaasaddii waxay idinkaga xumaatay daaroodkaad rabtaa inaad kala jebisaan hebel baa geesiya anugu dhihi maayo hebel baa geesiya laakiin anugu waxaan qabaaba darbi daarood inay u geysisan yihiin daarood nimanka laleeyahay lalkase inay u geysisan yihiinba taasaan anugu qabaa oo xaqiiqa qof walba waxbuu qabaa laakiin maba kala dhacaan idinkuse meelo kalead garaacayseen meelaha kale qolo walba waxbay ku fiican tahay waa geesiyaal ma dhihi kara geesi maaha oo nin walba waa geesi oo nin walba qubanihiisa qoorta ugu jira oo maamax soomaaliyeed oo waxaa dhahaysa jirta daaroodow doqon ma dhalay baa doqon ma dhale hadduu dhalana dabka kama kaco yacnaa waxaa laga wadaa doqon ma dhale hadduu dhalo dabka kama kaco waa de waa calle ma garateen marka waxa weeye anigu waxaan idinku raaco ma aqaan gabdhaha walaalahay ah oo maxaa la dhahay oo haddii alla kuu rayaan saaxiibada nahay oo facebooka la soo fadhiya daarood gabdhaha walaalahay oo facebooka la soo fadhiya daarood daarood sunaamida kuma keenin daaroodna meel kama wada duulo ha isa saaranina daarood shaqo iskuma laha ha isa saaranina meeshaan ninkaa mareexaan gabadhan baa furya xanjo isugu waxaysay aawa afgaaliya habargedir gabdhahoodii furya xanjo inta dhab isku siisay iyo hi ka soo siisay what are you talking about markaas hawiye ninkii dhaqaaqahayo haddii alla ku rayahayeen waa qaniinay yo dhabdhe ku siiye marka annagu ma ka ridi karnaa ninkii hallo anuu see kaaga ridaaba inaad maxaa la dhahay inta gogol dhigatid aad tirahdid daaroodow dhibkaasaa jira saasaa jira ninkaani nin u muuqda maaha inuu wax maamulo qaniinyu wadaa arsu wadaa dadkiiu yes waa inaad wax alla timaadaa laakiin I don't understand waxa aad annagiyo awalba yaabana liqliqanaynaa isugu kala diraysaan annagoo liqliqanaynay inaad isku hadirtaan walaalayaalo maaha ilaahay baa naleh waa la dhimanayaaye
قبلها صاحبة هذا انت صباح هدي على كره دارود ساسا اي ما فاهمين انا معناها كودا ما فاهمين قاركود ما انت ماشي way ugu jiraan عبد عمر adigu ma tiid I love you very much عبد عمر ma tiid qaarkood meesha hadda way igu jireen daarad kala dhigdhigayna ama daarad sunaamidaan idin keentay daarad isma saarna dusha iska saarna daarad shaqo iskuma lehe ha daarad intu treleegi ma arkaynin shaqo iskuma laha daarad qorax ka soo baxay qorax u dhac way kala jiraan shaqo iskuma laha ha maxaa isu saaraysan marka farmaajo ya mideeda kala waa maqaar saar ninka idin leynayo ninka idin dilahayo ninka idin caynayo waa hawiye ma idin sheega waxaad samaysaan ha ma idin sheega waxaad samaysaan ha hadda waa secret daaroodku bara ii soo galayaan leenka naayaa maxaad ugu sheegtay waa sheegaya waa jeclahay liwaxida maaweliska banaadiradi talking about waa jeclahay oo u sheegaya ha anigu talo iyo tusaale mid walba siinaya anigu xoog wax allaala waxa iga baahan anigu waa siinaya ha liwaxida maaweliska banaadir laakiin siyaasadda ka xumaatay waxa ka bedelan siyaasaddan xumaatay okay waxaad samaynaysaan liwaxyada maaweliska banaadir waxaad samaynaysaan harf bal leedihiin odayaashan dabada fadhiya oo aad ka soo saari weydeen ninkan la yiraahdo farmaajo inta aad u yeedhaan oo gogol dhigtaan baad waxaad leedihiin dhagayso annaga ayaad caqli noo tahay ilaa waxaad haysaa fact oday weber la dhahayo waad arkaysan inuu shoog qaaday si ugu nacamlaynayaan odaga weberkaahi waad arkaysan inta soo saartaan war dhagaysaa leedahay yaa maamulka u haysaa annagaad maamulka noo haysaa haddiina samayn sida aan rabno yah bal hadda la soco haddaada samayn farmaajo kuma saarinine nin reerkooda ka dhashay jilibkiisa wiil yar hadduu yahay oda weyn hadduu yahay asaga u caleema saara asaga laftigiisa u caleema saara hadda daaroodkiigu ku cahayaan hadda farmaajo inta ku jira dhag xanaaq hayaan I know adduun caqli loo baahan yahay meesha in la saxo ha waxaa la yiri laakiin caqliga ka maqan bal walaalkaabu ku jira waxaad samaynaysaan nin jilibkiisa ayaad caleema saaraysaa asagaad ku daba tukanaysaa waxaad leedahay nima matala ninkaasi hadda farmaajo waxaad weliba ku daraysaan markaad asaga uu idinka diido farmaajo waa tegin baad leedihiin farmaajo waa tegin laakiin adigu yaa si ma hayn doonti maxaa la dhahay caqlinimadan iyo ogaasnimadan ma hayn doontid ha ninka hadda saarano yaa hayn doona ilaa waxaani aayad quraana maaha moogta maaha aayad quraana waxaani aayad quraana maaha moogta aayad quraana la bedeli karin moogta waxaani aayad quraana maaha qofkii aadan rabin obama muxuu yiri obama wuxuu yiri ninkii aad u bogi weydaan ninkii maamulkiisa u bogi weydaan qaata qalin biyo sangareeya ka rangareeya idukura that's obama wuxuu yiri marka ay dhagaysta hadda it's not too late nimankan warkiina maqli waayay shaqo ka qabta la yaqaan afweyney hebelowey daaroodkow aydu jeclah walaalahay waxaa doonta ay dhaha qof dadku waa kala afweeye soo maaha laakiin anigu ma afweyni kaamirada isku soo dhaweynayay afkay quruxdiisa bal kala qaada gidigin car idinkoo kala qaada car bugshir iska soo qaada ilkiina idinkoo samee car iska soo qaada naftood ii keenteene bal ninkaa wuxuu leeyahay war haydhiin dhilo mar waan haye nin weyn baa tahaye ilka yar baa tahay marka waxaad diidaysaa inaan dadka u sheego anigu waa idin waaniye wuxuu yidhi ninkii haddii laydin dili jirana idin dili maayo haddii wax laydin sheegi jirana idin sheega daaroodka intaa ku mashquulaysaan gabdhaha laymanka soo galo daaroodow maxaa daarood dusha idinka saara daarood meel buu idinka degan yahay ha waa fiirsanayaan qofka idin dhex ordaysa waa asiyo laba kale
waa laydin fiirsanayaa maxaa yeelay booskoodii dhammaay 4.5 weeye yaad ninkaa saadheen waxaad u saarteenna inta dhagadhagaysaan inaa ka tuurataan dhagadhagaysaan inta ka tuurataan marka caqligalmi ah haddaba waxay igu dhaheen baan idiin sheegayaa ama waagu ha idiin beri ama ise waagu idiin beri waxay dhaheen annagu 4 sano hal bacaad lagu lisay weeye haddii 4.5 uu sharcigu yahay oo wax qaybsigu 4.5 uu yahay yaa annagu 4.5 maanu arkinin waa hal bacaad lagu lisay annagoo daaro Ismaaciil oo naqaana si wax loo maamulo maamulkan iyo siduu u socdo annagu ma naqaan marka annagu yaa heeg maxkamadda heeg baan isla tagaynaa baa leeyahay 4 tayadii sanaanu rabnaa for your information ama seexda waxaan malaynayaa maanta in badan inay ma tagi doonto qaraan ma in badan inay isweydiin doonto oo ku guuxaysay 4 sano oo soo socota anigu waa rabaa libaaxida in loo dhiibo laakiin ayagu la socda daaroodkii kale inay sheedayda ka fiirinayaan oo soo socdaan thank you very much walaale maxamed gata caadiskani wallaahi billaahi inaan beesheegay waxay dhaheen 4 sano hal bacaad lagu lisay noqotay 4 sano aan anagu lahayn weeye haddii ma saan 4 sano u baabaaday anaga aan 4 sano ma ninka saan wax maamulayo dawlad haysataan oo kan idin dilhaya iyo kan idin caynhaya oo wada hawiye yihiin bad intaa waxaad ka shan daarood war ninka daarood oo xidin yeelay ninkaasi meeshu fadhiyay carsheega ma jiro idinkaana saartay marka gabadhii Saynabeed haddii gabadhii habar gidin iyo abgaal ay ka xoog badantay yaa maxaana la ka rabaa maxaana aniga 100% anu waxaanay way support gareynaya libaxyada maaweeliska banaadir 100% way support gareynaya laakiin sida wax u wadaan idinkuma support gareynayo intaad iga baxdaan idiga la jooga daarood maxaa isku saartay shaqaba iskuma lahayn kursigii daarood lahaa nin baa inta loo dhiibay baa ninkii haysataan waa soo afjarteen waa soo baabi'iseen haya anaad leedahay daarood kursi daarood waxay yiraahdeen male anna waxay yiri daarood waa idinkaga dhamaatay kursigan libaxyada maaweeliska banaadir baa leh ayaguna waxay leeyahay libaxyada maaweeliska banaadir ma lehe heeg baan isla tagaynaa heeg maxkamadda adduunkaan isla tagaynaa ninkan ayagaa saartay ayagaa ugu talagalay inay dhagadhageeyaan oo ka tuurtaan maxaa yeelay inta nin daarooda tartamaysay nin ay ugu shubeen ma jirto maxaa yeelay waxay waa isku dhufteen way xisaabiyeen they calculated markay xisaabiyeen waxay arkeen triangle power inay leeyihiin daaroodku triangle ba aniga ayaga ii sheegaya anigu waxaas dhan miyaan ka ogaa yaa gadaal bay iga soo galeen waxay dhaheen triangle kaasay diidanayeen laakiin inaad diidaan maaha waxaa la rabay nimankan majeerteenkaayo iska jecel ayagu dawladda dadka wax ma yeelaan moogta dadka wax ma yeelaan waa dawlad jecel yihiin waa dawlad dadka wax ma yeelaan majeerteenku waa iska dawlad jecel waxaa la rabay Cabdiraxmaan maxay Cumar Cabdirashiid kaaseeto iyo Cabdiraxmaan iyo inay iskaga dhiibaano ay saaxiib le waayihiin halkaas iska waxayaan idinku calaayata halnimo wax ku fakar daaroodku waxay taagan yihiin waxaad u malaysaa inaan ogeyn sababta ay ugu dhiibeen ninka la yiraahdo magaciisi no jacayl yihiin uguma dhiibinin waxay ugu dhiibeen intaad ka dhagadhagayso ruuxdi sidii shaata impeachment-ka ku samaysay dhag inta ka siisid asagoon dhammaysanin atuurt maalin walba naayaa baa la yiraahdaa maalin walba ninka daarood baa la saaraya naayaa maxaa loo saari waayey naayaa heel baraf xasan baraf maxaa loo saari waayey waxaa la aqoon dusha naga soo saaray gaalkacyo yaa inta 2 sano loo diiday xanaaqa daaroodku ay luuqa igu soo galaan maba idinkaga sheekayn karo for your information haddaa sheer garaynaysaan haddii kale daaroodku waa ay xanaaqsan yihiin maalmahana qabshaxsado oo minaa lacag la soo siiyo la yidhi daaroodku nagu soo jabi iyo wiilka boos la yidhahdo waa fiicaya iyo daahir calasow alla muxuu daqaya ku haya waa ninkayga degi waaye bal waaba arkaysaa inuu qaldan yahay xasan biyo xasan sheekh waa afgaran waay yaa calaa iyo tacaala ma ha ku afgarto
ama yuusuf ku afgaran daaroodka waa idiin soo socdaa daaroodkii waa idiin soo socdaan waxay dheheen ha game now gameka hadduu bilaabanayaa baa la yidhi aniguna waxaa idhi nin baasaboor wata yaa xaaraan buu iga yahay waxaan rabaa xasan daahir aways in la soo furo mukhtaar roobow in la soo furo xasan daahir aways mukhtaar roobow cali dheere geesiyada soomaaliya kuwaas maahane cid kaloo maamulaysa waddanka ma jirto xasan daahir aways cali dheere mukhtaar roobow saddexdaa nin maahay nin kaloo soomaaliya maamulaya ma jiro ha igu dhihin baasaboor ba halkaan baan ka duulahayaa maalintii ay wakhtigu soo dhow yahay ballan baan kaga qaaday inaysan haysan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilmaha soo qaadanayaa guys